xogayaha dhalinyarada ee heer qaran ee xisbiga UCID Mawaarig Axmed Maxamed ayaa ka hadlay cabashooyin ka soo yeedhay tagsiileyda magaalada Hargeysa kuwaas oo ka cabanaya lacag cashuur ah oo lagu kordhiyay taas oo ay ku kordhisay dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa. Waxa uu sheegay inaan xaq lagu lahayn in tagsiilayaasha Hargeysa laba cashuurood dowladda dhexe iyo dowladda hoose ee Hargeysa ay ka qaado, laakiin loo baahay in hal cashuur laga qaado taasina ay noqoto wax ayagu ay awoodayaan. doonaya dadku bulshadu inaan fahamsiino in la fahanto in horumarku ku xiran yahay dhaqaalaha amba cashuurta dadka laga ururiyo. dalkeenuna wuxuu ugu baahi badan yahay maanta in jidad loo dhiso, in la horumariyo, in la qurxiyo. waa ogtiin sida ay dowladii hoose hore looga cabanayay. haddana taa macnaheedu maaha in dadka jilicda san amba aan awoodoodu dhaqaale aanay badnayn in cashuurada aanay awood u lahayn la saaro. tagaasidu runtii waa dadka ugu nugul maanta. anigu runtii xogaal baan ahay, in badanna waan la fadhiistay, waan waraystay. waa dad yooga waxay ku jiraan ugu nugul maanta dhaqaalaha uu saameeyey. dadkaasi ma laha meel muxuu ahaayey runtii location loogu yimaado ma laha oo ay istaagaan oo ay xaq ugu lahaayeen dowladoodu inay siiso, haddii dowladda hoose tahay iyo haddii ay tahay mid dhaxaba. markaa de in cashuuraad saaido oo aan awoodooda ahayn. waad ogtihiin suuqa dhaqaaluhu suuqu siduu u xumaaday, aan wax soo saar badan aanu jirin. inta maalintii dakhligooda ay soo saaraan runtii haddii aada loogu kuurgalo waaba dadyooga u baahan baad odhanaysaa in wax lagu kabo. markaa de iyadoo la eegayo xaaladda taagan ee jirta ee dhaqaale iyo duruufaha ay ku sugan yihiin, haddana lana eegayo dee horumarka la doonayo in laysku miisaamo ayaa meesha ku jirta. arrinkaana arrin dee runtii lagu yar degdegay buu u muuqday. waxa weeyaan maalintii dhow jalo go-aan kaa soo baxay oo de waxaan ognahay tagaasida waddo gaaroo da ay maraan ma jiraan, intaa baabuurta kala marta ayuunbay maraan. dowladda dhexena waxay ka qaadaa cashuur. markaa cashuurta dowladda dhexe ay ka qaadaa waa wadda maris. deetanna waxay noqonaysaa un macnaheedu waa lacag kale oo wadda marisa. marka haddee labo wadda marisood oo aynu ognahay dee dhaqaalahoodu siduu yahay runtii way ku culus tahay. dee dowladduna waa miduun, dowladda hoose iyo dowladda dhexena waa miduuna, laba dowladood ma kala aha. markaa dee in arrinka la soo saxo runtii ayagana waxaan markiiba dee lagu emergency-ga lagaga dhigay dib loogu noqdo. shalay toole haddana waan arkayda maayarka raaligelin bixinaya. tii horena runtii waa lagu degdegay, ayay aniga ila muuqataa. tan iminkana waa lagu degdegay. horta in mar kasta la qiimeeyo xaaladda rasmiga ah ee ay ku sugan yihiin iyo wax soo saarkooda in la qiimeeyo. markaa dee waxaa la ogaan karayaa maxaa la saari karayaa, maxaa cashuuro lagu soo rogi karayaa, sidee loola macaamilayaa, ayadoo de kale wixii sharciya la marayo. laakiin tii anigu xogaalnimada aan u ogahay tagaasidaa yarar marka horeba niman dhalinyaro ah oo aan shaqo ma garanaysaa haysanin baa shaqo looga sameynayey. markaa markii dambena iyo iminkana oo dee dhaqaalihii guud ahaan adduunkuba xumaaday iyo kii dalkuba wax soo saarkooda aad buu runtii u kooban yahay. markaa runtii waxaan arrinkaa in arrin lagu degdegay uu yahay oo runtii u baahan in de ayagana lala fadhiisto, guddidooda lala fadhiisto oo wax la weydiiyo si ma garanaysaa wixii markaa suurtagal ah dee cashuuraada looga qaado. ayaga qudhooduna in dee sidan ka usluubaysan oo ka habboon ay iskaga imaadaan oo ay samaystaan guddi ay samaystaan. maayarku waa nin wax dhegaysanaya, de sidaa aan arkaynay ay la kulmaan baahidooda iyo sida ay wax u dareemayaan ba ay kala hadlaan. kale muhiimka ah waxa weeyaan iyaduna u baahan in de bulshaduna ay fahanto. maalintii dhawatoole ee go-aanka cashuurtu dee ololahaasi uu soo baxay, waxaan arkayey oo magaaladan ku arkayey bilayska u shaqaynaya dowladda hoose oo macaamilkoodu runtii aanu qurux badnayn. aniguba dee qaar aan la kulmay ayaga oo waxa weeyaan dadku waxay ku qurux badan tahay. bulshadeenu waa bulsho goba oo wanaagsan. haddii wax la fahamsiiyo oo awareness la siiyo, waa dad soo bixinaya xataa iyagoon waxba haynin. marka in etigiska oo akhlaaqiyaadkii dee ayadana la ilaaliyo, qofka la fahamsiiyo waxa cashuurta dee si looga qaadayo, sida waxa kaga soo noqonaya. dee qofkii haddii dee jujuub dee waxba kuma socdaan, waana dee tii hore la bedelay systemkii ay ku shaqayn jirtay weeye.
abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahabbay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Mar kasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.